maanta oo jimcihii ugu dambeeyay bisha Ramadaan oo maalin qaranka iyo hawsha shaqo ee la qabanaya ay fasax tahay iyadoo horumarka degmada Maxamed Mooge ka socda ay cadeynayso in aanay shaqadaasi aan xilli walba iyo waqti walbana lagu jiro waxaanu wadnaa horumarka degmada halkan imika joognaa waxay wadada ka habsan ee ka bilaabanta wadooyinka ka socda degmada Maxamed Mooge wadadan oo ka soo bilaabmaysa kaabsan oo wado weyn oo ballaaran ah oo ilaa ku dhacaysa wadada Shiraaqle oo wada aan doonayno inay wadooyinka casrigaas ee ka socda caasimadda ay noqoto oo biyo-mareenadeedii iyo shoulderskeedii waxeedii oo dhan leh insha Allah taala wadada imika carakaabadii saad ku aragtaan ayaa ku socota oo ay graderty fidinaysa insha Allah taala waxay sameyn doonaa waqtiga soo socda in wadadaas oo asfara oo rooga oo wada casriya ay aanu xariga ka jari doono waxaan halkan uga faa'iideysanayaa dadweynaha degmada Maxamed Mooge iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii oo roobkii noo bilaabmay inay meelaha biyo mareenada iyo meelaha laga oo kale ay iska fogaadaan waxa kale halkan aan uga faa'iideysanayaa dadweynaha degmada Maxamed Mooge dawladdu imika way idin hagarbaxday waan idin shaqaynaysaa maalinta jimcaha ee fasaxaas ee qaranku shaqadii fasaxay ay shaqadii ku jirtaa aniga halwadeenadii oo sawirka ku aragtaan ee qaybta graderka qaabsnaa markaas dawladdu iyadu way u hagarbaxday in shaqada qaranka mar walba ay qabato idinkuna dhinacina gacmo wada jir bay wax ku wada qabtaan wado walba waa la idin dhisayaa dadweynaha waxaanu leenahay xaafad walba waa soo kaashataan dawladduna qaybteeda ka qayb qaadanaysa wadada la dhisayo wadada la baneynayo infrastructure oo dhan waxaas oo dhan waa dawladdu waxa weeye wax qabad ba wax walba laga jawaabayaa waxaan u diyaar tahay inay wax qabad buuxda ay samayso waxaan halkan kale fariin uga dirayaa shirkadda Sunpower ee qaybta leerka iyadoo xilli roobaadkii lagu jiro ay dadkeenuna iyo xadhkeenuna ay iyo biruhuna ay badan yihiin oo meel walba ay ku xidhan yihiin waxaan u soo jeedin lahaa xilliga roobka inay heegan buuxda ay ku jiraan oo xaafad walba iyo meel walba ay kormeer ku maraan xadhkaha leerka oo leerku de short iyo wax walba uu keeni karaa waliba xilliga roobaadka waxaan ku soo gabagabeynayaa wax qabad badan ayaan muujin doonaa intaas iyadoo siyaasaddaas uu noo hogaaminayo maayirka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaanka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan gabagabo ku soo gabagabeynayaa hawl badan iyo hadal yar